daawadayaal taariikhooda waxaan isku dul taagnaa taariikhda Somaliland haddaba intaynan barnaamijkeena u guda gelin waxaan naga codsiyaa ama xusuusinaa subscribe-ta, share-ta, like-ta Somaliland waa magacaad cusub marka la eego taariikhda uu waddankan leeyahay. Jamhuuriyadda Somaliland waxaa hore loogu magacaabi jiray dhulkii uduga iyo cadarka ama bakhuurka waa sida ay u yaqaaneen masaaridii hore, halka Greegii hore ay u yaqaaneen dhulkii Berbera oo halka uu ka soo jeedo magaca Berbera xilligii Muslimka ama qarniyadii uu Muslimku soo gaaray. Somaliland waxaa loo yaqaanay dhulkii Saylac. ugu dambeyntii xilligan aan joogno waxaa lagu magacaabaa Somaliland. Somaliland waxay ku taallaa geeska Afrika dhinaca waqooyi galbeed. waxaa ka xiga oo ay daris la tahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti, galbeedna waxaa ka xiga Ethiopia, barina waxaa ka xiga Soomaaliya. tirada dadka Somaliland waxaa lagu qiyaasaa 5 milyan iyo badh. baaxadda dhulka ay ku fadhido Somaliland waa 135,000 oo kilomitir square. Somaliland waxaa dhinaca waqooyi ka xiga badda Cas oo ku fadhida xeeb dhererkeedu dhan yahay 870 kilomitir square. Somaliland oo leh taariikh aad u ballaaran dadkuna aan wada aqoon waxay ka mid tahay meelaha ugu horeysay ay ka hana qaaday ilbaxnimada adduunku. waa buuqad aad u barakaysan 1400 iyo googo sana ayay kontay yaa lagu tukan jiray masjidkan uu baabaasanaa muddo ilaahay markuu qof soo diro uunba wax laga qabtaa. masaajidkan markaa waa masaajid taariikh leh, waa masaajidkii rasuulkeena calayhi salaatu isagoo horta markii dadka taariikhda ku xeel dheer waxay sheegeen in faraacintii hore asalkoodu Soomaali ka soo jeedeen, deganaan jireen dhulka xeebaha badda Cas, taasoo markii dambena ay xiriir qoto dheer la lahaayeen Somaliland. waxaana xadaarada Somaliland ku siman tahay ilaa 7,000 oo sannadood. ciise hortii markii diintu soo degtay qarnigii 7aad geeska Afrika waxay noqotay meel aad u muhiim ah markii uu muslimay boqorkii Xabashida ee Nataashi. waxaana xeebaha Somaliland ahaayeen meel istaraatiiji ah oo asxaabtu soo hijrootay. haddaba qarnigii 13aad waxaa culimadii Carabeed ee dalka timid ka dhiseen saldanad la oran jiray Baabad oo xukumi jirtay boqortooyadii Walaashma. waana markii koowaad inta taariikhda lagu hayo qabaa'ilkii Soomaalidu yeeshaan maamul dhexe. inta dalkeena laynoogu yimi layna soo booqday weliba maraakiib lagu yimi dad iyo duuyo iyo xoolo iyo ari iyo geel iyo wax walba inta la qaaday loo khushuuco Germany la geeyey. imika innagaaba malaha reeriibka daba roocne barigaa iyaga xaggan u soo boqooli jiray oo dhaqankeena iyo dadkeena doonay inay bartaan. waa xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan. xidhiidhada noocaasa Somaliland waxay ka mid tahay bariga Afrika marka laga yimaado Ethiopia, dalkii ugu horeeyay ay ka hana qaaday maamul dawladeed. inkastoo aan runta laga sheegin taariikhda dhabta ah, haddana waxaa amro ku jirin Somaliland qarnigii 15aad ay lahayd dawlad dunida laga ictiraafsan yahay. markii uu hoggaanka qabtay Imaam Axmed Qasali oo lagu magacaabi jiray Gurey, maamulkaas oo markii dambe la magac baxay dawladdii Awdal, xukumna jirtay inta u dhaxaysay xeebaha badda Cas ilaa Herar. sanadkii 1869 ayaa waxaa la furay marinka kanaalka Suez oo taasi ku dhiirigelisay gumaystayaashii reer Yurub ee Afrika qaybsaday 1884 shirkii Berlin. waxaana la aaminsan yahay in Somaliland ahayd dal ku fiican dhinaca istiraatiijiyadda oo isku xidhayay badda Cas iyo badweynta Hindiya. haddaba boqortooyadii Ingiriiska waxay yimaadeen xeebaha Somaliland. Ingiriisku dhowr jeer buu heshiisyo kala duwan la saxiixday odayaashii Somaliland, waxaana ugu caasanaa heshiiskii Argaha ee sanadkii 1887 oo heshiisyo la saxiixdeen odayaashii beelaha Somaliland. waxaan ka garanayaa hay'addan Hindiya waxa weeyaan 1836 waan gartay. hay'addan Talyaani baa ku xiga waa 1723 waxaa ku xiga ardo xabash baa xitaa ku jira. badanka way iga xaquuqmeene laakiinse taariikhuhu way kala dheerdheer yihiin.
1940 baa jira 1903 sanadkii 1896 waxaa bilowday kacdoon iyo dhaqaalayo looga soo horjeedo gumaystihii Ingiriiska waxaana guluf iyo dagaal dhex maray ciidamadii sayidka ee daraawiishta iyo dowladda Ingiriiska ugu dambeyn waxa la jabiyay daraawiishta oo hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Ismaaciil Mirna abaanduulo guud ka ahaa sanadku markuu ahaa 1921 waxaana halkaasi ka ambaqaaday halgamayaashii Sheekh Bashiir iyo Faarax Omar waxaana dalka ka bilowday kacdoon gobonimo doon dagaalkii labaad dabadiisii